Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samne Kasta Official. Fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar. Sidoo kale hanaga ilaawin inaad gambalelka furto si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan halkan aan kusoo gudbino. Sidoo kale saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore channelka noola socotay. Sidoo kale waxaa kaa codsanaynaa muuqaalka inaad like garayso, sidoo kalena aad sii share garayso si uu markaas muuqaalku u gaaro saaxiibo badan ana ugu soo biiraan markaas channelka. Waana ku mahadsantihiin si aad mar walba noola socotaan. Sidoo kale leegtiin waa dhiirigelin mar walba waxaa leegtu u tahay markaa inaan muuqaalada soo badino. Sidoo kale halka waxaa kusoo gudbinaa barnaamijyo xiiso badan iyo marka aflaamta xilligaas soo baxaya iyo sida markaas aflaamta laga yiri ama sheekadooda xilligaas markay tahay. Sidoo kale xilliga marka OTT-ga la saarayo barnaamijka maanta waxaa kusoo qaadanaynaa aflaam dhowr ah kuwaasoo tiyaatarada mar hore la saaray iyo sida kuwa kale oo markaas soo socda ama cusub oo sanadka 2022 dhamaadkiisa ama horaanta 2023 la daawan doono. Haddii aan ku horeyno filimka lagu magacaabo Farisu oo hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay. Filimkan hore ayaga uga soo hadalnay waxaana sheegnay filimkiisa Thalabati 66 inuu yahay waa filimkiisa 66 waxaana hogaaminta la qaadan doonta gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandana oo filimka atirsha ka noqon doonta. Sidoo kale waxaa ku jira Prakash Raj oo loo yaqaan Serapta. Sidoo kale waxaa ku jira Prabhu oo markaas laga dambeeyay dhankaas iyo dhulweynaha Tamil marka filmaanta Tamil marka inta badan ka soo muuqda halka Prakash Raj uu ka soo muuqdo filmada Hindi iyo idil maadaama filmada Bollywoodka Telugu inta badan iyo Tamil inta badan xidigan ka soo muuqdo inta badan waa mid caanka marka Hindi iyo idil maadaama filmada kala duwan ay markaas shirkadaha kala duwan India ka soo muuqdo xidigan. Haddii aan ka soo gudbino filimkan hore ayaa uga soo hadalnay waana shamaal kor ayaa filimka ka soo hadalnay waxyaabaha marka xilliga soo bixi doono bas hadda filimkan waxaa ka cusub waxaa laga soo bandhigay 3 kaarto oo u gaara filimkan maadaama filimkan magaciisa hadda la shaaciyay sidoo kalena kaartadiisa markaas la soo bandhigay xilli markaa u dabaaldegay ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay dhalashadiisa maadaama 22 Juun xidigan ku beegan tahay maadaama uu dunida ku soo biiray ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay. Markii waxaa laga soo bandhigay filimkaas 3 kaarto oo u gaara oo markaas lagu soo bandhigayo xarakaadka uu markaas ka sameeyay ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay iyada kaartada lagu soo xadhay magaca filimka iyo xilliga markaas la daawanayo filimkan waxaana soo bandhigay ninka producer-ka filimkaas kale ninka lagu magacaabo Dil Raju oo filimkan wax ka maalgelinaya. Sidoo kale waxaa director-ka ninka lagu magacaabo Famshi Pandey oo filimkan director-ka. Filimkan waa filim xiiso badan ku xarakeynaya ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay. Sidoo kale kaartada waxaa ka muuqata inuu markaas ninka lagu magacaabo Thalabati Vijay oo filimkan ku matalayo doorar kala duwan. Haddii aan soo qaadano doorka markaas uu saaran yahay gaariga markaas qudaarta saaran tahay waxaa laga yaabaa markaas noloshiisa inay tahay mid hooseysa. Sidoo kale filimkan waxaa la dhex maraya in markaas laga soo koobi karay filimkii Maharshi hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Superstar Mahesh Babu waa sida markaas shabakadaha kala duwan ee Hindiya markaas qorayaan. Saxaabta filimkan intaas ayaan kaga soo gudbinaynaa maadaama wax cusub ay markaas ka soo kordheen filimkan iyadoo marka la soo bandhigay 3 sawir ee hadda markaas shaashada ka arkaysaan. Saxaabta filimkaas intaas ayaa ka cusub wixii ka soo kordhana waa la soo xasuusin doonaa. Sidoo kale filimkan waxaa la daawan doonaa horaanta asbuuca labaad ee markaas January 2023 ama markaas feestada Pongal ama markaas u dabaaldegaan dhankaas iyo Hindi Tamil Nadu halka markaas Hindi tada kale ugu dabaaldegaan feestada loo yaqaan Sankranti taasoo ku beegan 14 ilaa 15 January ayaa markaas xidigan waxa loo saari doonaa filimkan tiyaatarada. Asxaabta filimkan inta ayaan kaga soo koobaynaa maadaama filimkan uu yahay filim la sugayo maadaama filimkan inta badan oo shaqadiisa qaadan doonto muddo 6 bilood maadaama sanadka 2023 ay ka dhiman tahay muddo 6 bilood markaas filimkan waxa laga yaabaa inuu shaqadiisa socoto 3 bilood harsan markaas filimkan editing iyo waxyaabo gaar ah markaas loogu sameeyo. Asxaabta filimkaas inta ay ku soo gabagabeynayna wax macluumaad ah haddii ay ka soo kordhana waa la soo xasuusin doonaa halkan kala socda. Sidoo kale wax soo qaadanayna filimada waa filimka lagu magacaabo Vikram hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo superstar-ka caanka Kamal Hassan halka uu ku weeliyo xidigada kala duwan ee lagu kala magacaabo Fahad Fasil iyo ninka lagu magacaabo Vijay Sethupathi halka uu door awood badan markaas uu marti ku yahay ninka lagu magacaabo special appearance loo yaqaan ku leeyahay ninka lagu magacaabo Surya una qaatay doorkiisa Rolakis oo markaas filimkan lagu amaanay ninka lagu magacaabo Surya oo filimkan amaan balaaran ku helay iyo markaas xarakaadka uu ka muujiyay ninka lagu magacaabo Surya oo filimkan inta badan markaas lagu amaanayo doorka saameynta filimkan uu qaatay ninka lagu magacaabo Surya halka markaas ninka lagu magacaabo Vikram oo filimka ku matalayo Kamal Hassan uu qaatay doorkiisa xumaanta ama markaas laarinta uu soo afmeeri lahaa maadaama filimkan loo daawanayo ninka lagu magacaabo Vijay Sethupathi iyo Kamal Hassan xifaaltan ka dhexdeeda doona
halka ninka lagu magacaabo Fahad Faasil uu filimkan ku matalaya askari booliis ah markaas labadooda inta badan dhexdhexaadinaya markaas labadooda hadba mid la shaqeyn doona ninka lagu magacaabo Fahad Faasil oo markaas filimkan dhexdhexaadiye ka halka lagu magacaabo Vijay Sethupathi markaas inta badan xifaaltami doona ninka lagu magacaabo Kamal Hassan sidoo kale meesha kama maran ninka lagu magacaabo Fahad Faasil oo markale xifaaltami doonaan ninka lagu magacaabo Fikram sidoo kale filimkan qorshe wuxuu yahay in laga sameeyo qayb labaad sida horena kuugu sheegnay wuxuu yahay in markaas oo ka soo muuqan doona ninka lagu magacaabo Fahad Faasil iyo ninka lagu magacaabo Suuriya sidoo kale doorkiisa yaraa markaas roolkiisa ayaa filimkan lagu ballaarin doonaa oo markaas la awood badan ayuu filimkan ku matali doonaa hadda qorshe wuxuu yahay directorka lagu magacaabo Lucas Raj filimkan inuu sameeyo qaybtiisa labaad sidoo kale taageerayaasha markaas Kamal Hassan aad ayay u dhalanayaan maadaama filimkan lagu magacaabo Fikram uu ku dhawaas oo markaas tiyaatarada ka soo xareeyay ku dhawaad 350 karoor isagoo markaas fanka ugu dambeysay sanadii 2013 oo markaas uu ku biiray dhankaas siyaasadda hadda ayuu fanka ku soo laabtay muddo 8 sano haddana wuxuu la imaaday film all time blockbuster isagoo soo xareeyay ku dhawaad 350 karoor sida ganacsigiisa guud ama worldwide gross markaas shaacisay shabakada box office Bollywoodka asxaabta filimkan wuxuu noqday filimka lacag ugu badan soo xareeyay markii la joogo dhankaas Tamil Nadu isagoo ka soo xareeyay ku dhawaad 160 karoor halka suuqyada caalamka ka soo xareeyay ku dhawaad 100 karoor sidaas ayuu wuxuu noqday filimka lacag ugu badan soo xareeyay markii la joogo Tamil Nadu sidoo kale waxa qorsheeya markaas in OTT lagu soo fasaxo 10 June 2022 ayuu qorsheeya filimkan OTT lagu soo fasaxo asxaabta xilligaas ayaa noo balama iyo markaas macluumaad ka soo kordhay markaas filimkan la soo xadi doono ama markaas internetka lagu soo faafin doono sidoo kale barnaamijka OTT ayaa ku sii wada jirnaa markaas waxa filimka lagu magacaabo Major aan soo qaadanayna oo hogaamiye ninka lagu magacaabo Adif Ishe sidoo kale ku wehelnaa ninka lagu magacaabo Prakash Raj oo filimka door weyn ka qaadan doona sidoo kale filimkan xiisaha badan sidoo kale waxa ku wehelay gabadha lagu magacaabo Salima Majnekar oo filimka door atrish ka qaadan doonta oo markaas filimka kula matali doona ninka lagu magacaabo Adif Ishe filimkan xiisaha badan waxa soo baxay June 3 horaantii sanadkii bishii June soo dhaafnay ayuu filimka tiyaatarada loo saaray xidigan sidoo kale filimkan waxa uu noqday xidigan film super hero maadaama filimkan lagu iibsaday ku dhawaad 18 karoor halka uu ganacsigiisa guud dibadda soo xareeyay ku dhawaad 60 karoor halka qolyaha cajalada qaybashada ka heleen ku dhawaad 28 karoor filimkan wuxuu noqday film macaash badan laga helay sidoo kale xidigan waxa ku gaaray maqaam sare maadaama filimkiisii ugu dambeeyay Major uu noqday super hit sidoo kale filimka actorka markaas uu filimka uu noqdo film guuleysta waxa laga yaabaa in directorada kala duwan markaas inuu soo bandhigaan filimaan kala duwan si uu markaas xidigan uu noqdo xidig awood badan maadaama filimkiisii uu markaas ka gaday Telugu halka filimkan mashruucan uu maalgelinay ninka lagu magacaabo Mahesh Babu filimkiisii ugu dambeeyay waa Sarkari Farfata oo filimkaas uu ka guuldareystay ninka lagu magacaabo Mahesh Babu hadda filim wuxuu la soo waday ninka lagu magacaabo Fikram sidoo kale filimkan ninka lagu magacaabo Adif Ishe haddii uu markaas soo bandhigi doono mashaariic kala duwan oo markaas hogaamiye ka noqon doonto filim asxaabta waa la soo socodsiin doonaa maadaama filimkan ninka lagu magacaabo Major uu Adif Ishe uu gaaray maqaam sare maadaama markii ugu horeysay uu filimkan noqday filimkiisii ugu horeeyay oo guuleystay maadaama uu gaaray darajada super hit filimadiisii ugu dambeeyay aanu soo qaadanay filimkii Faro la daawaday sanadii 2019 kaas oo noqday hit dhameystiran ama average film guuleystay ayuu noqday filimkaas waa filim xiiso badan oo markaas Adif Ishe ku matalay door askarinimo oo markaas dambi uu ka soo saaray gabadha lagu magacaabo Kalina Dusus oo filimka door weyn ka qaadatay oo markaas ku matalaysay laadarimo oo markaas ninka lagu magacaabo Adif Ishe oo filimkan ku matalay in aabihiisa ka dishay gabadhana oo markaas uu baaray kiiskaas filimkaas waa filim aad u xiiso badan haddana waxa la imaaday filimka Major asxaabta filimkan OTT waxa lagu soo fasaxi doonaa sida qorshu yahay ama sida la filayo June 3 ama bil ka bacda filimkan OTT lagu soo fasaxi doonaa afan ay raadeen bisha July 3 filimkan OTT lagu soo fasaxi doonaa haddii ka hor lagu soo fasaxi doono ama 1 July ama 24 June filimka waxa laga yaabaa in markaas afsoomo la helo ama markaas OTT laga helo ama qolyaha aflaamta xada ama hackeriska markaas filimkan ay soo bandhigaan ama website kala duwan ay filimkan ku daawacaan asxaabta filimkaas intaas ayaa ka cusub ayaan la soo saasin doonaa wixii markaas ka soo kordha filimkan iyo xilliga markaas af Soomaali lagu soo tarjumi doono sidoo kale barnaamijkeena waxaa ku soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Ram Charan 15 oo hogaamiye ninka lagu magacaabo Mega Power Star Ram Charan halka ay ku weelisay gabadha lagu magacaabo Kiara Advani sidoo kale filimkan xiisaha badan oo filim ku soo laabanaya ninka lagu magacaabo Ram Charan iyo saameynta filimkiisii Triple R oo markaas dunida daafaha caalamka ku qabsaday ninka lagu magacaabo Ram Charan
kaasoo noqday pan India star. sidoo kalena actarkan uu markaas ka noqday film ay actar markaas laga jecel yahay Hindi oo idil, maadaama filimkii RRS uu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran isaga ninka lagu magacaabo NTR. sidoo kale filimkan waxaa xiiso u yeelay gabadha lagu magacaabo Kiara Advani oo markaas kasoo muuqan doonta filim labaad markaas laga leeyahay Telugu. filimkeeda ugu dambeeyay markaas Telugu ay kasoo muuqato wuxuu ahaa filimkii Paradise oo hore ula sameysay xidigii caanka superstarka caanka ninka lagu magacaabo Mesh Babu. haddana waxay kusoo noqotay fanka Telugu oo markaas waxay filim la sameynaysaa ninka lagu magacaabo Ram Charan, halka filimkan director ka yahay ninka lagu magacaabo S Shankar oo markaas laga dambeeyo dhankaas iyo Telugu. sidoo kale filimkan xiisaha badan wuxuu isugu jiraa filim political drama oo markaas sheekadiisa tahay political ama siyaasad filimkan ku saleysan tahay, halka xidigta lagu magacaabo Kiara Advani filimka doorkeeda ka qaadan doonto. xidigta cirka ay gashay tan iyo filimkeeda Bull Player 2 waxay noqotay xidig markaas Bollywood-ka dhan hadal hayaan, maadaama filimkeeda ugu dambeeyay Bull Player ganacsigiisu noqday blockbuster. haddana soo wada filimka lagu magacaabo Jugjeyo. sidoo kale waxaa shaac laga qaaday filimkii Ram Charan 15 inay kasoo muuqatay xidigtan waxay noqotay xidig markaa big star ah markaas xidigaha laga dambeeyo markaas waxay noqotay dhanka Bollywood-ka markaas waxay markaas qabsan doontaa fanka Telugu. haddana xidigtan waxay noqotay xidig markaas cageeda ku istaagta oo markaas film walba kasoo muuqan doonto markaas door muhiim ah ka qaadan doonta. sidoo kale xidigta markay filmadeeda markaas guuleystaan waxaa laga yaabaa xidigtan mushaharkeeda ama salarigeeda markaas inuu kor u kac u sameeyo haddii markaas filimkeeda Bull Player guuleysto. haddii markaas ku sii darso filimka lagu magacaabo Jugjeyo atashadan markaas cid u soo dhawaan karto male markaas filimkaas filmadaas ama waxay sheegan kartaa markaas mushaharaadkeeda oo markaas looma jaangoyn karo markaas directorku uma jaangoyn karo way dalban kartaa markaas mushaharka markaas filimkaas ku qaadan doonto. xidigtan waxaa laga yaabaa filimada ay markaas soo wadi doonto markaa sanadkan 2023 haddii 2022 dhamaadkiisa haddii filimada markaas xitashadan sidaas waxaa laga yaabaa inay ku sameyso ku dhawaad 15 karoor ilaa 20 karoor oo u dhigantay ilaa ku dhawaad 2 milyan ilaa 2 milyan 500 ayay markaas xidigtan qaadan doontaa halkii filim ay ku qaadan doontaa. asxaabta filimka Ram Charan 15 wuxuu qorshe u yahay markaas la daawado sanadka 2023. asxaabta filimkan wali markaas shaqo lagu bilaabay maadaama markaas xidigta Kiara Advani markaas filimka Jugjeyo xayeysiin sameynta filimkaas ay ku mashquulsan tahay xidigtan, halka markaas ninka lagu magacaabo Ram Charan markaas ku jiro fasaxiisa gaaban oo markaas xaaskiisa lamriitaasi markaas fasax uu la qaadanaya ninka lagu magacaabo Ram Charan. filimkan qorshe wuxuu yahay 6 bilood xalay markaas in qorshihiisu bilaabato markaas xidigtan iyo Ram Charan markaas fasaxyada markaas ay kasoo dhamaadaan xilligaas ayuu qorshe yahay filimkan in markaas shaqadiisu bilaabato. asxaabta filimkan waxay kasoo kordhana waa in la soo socodsiin doonaa halkan nagala socda maanta muuqaalkeena halkan ayuu ku egyahay. fadlan muuqaalka haddii aad ka hesho like noo saar, haddii aad ka cusub tahay channelkana subscribe noo saar, waana ku mahadsantihiin sidaa mar walba noogu dhiirigelisaan markaas muuqaalada aan soo badino. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.